hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqdayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsato wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyay dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinnu intaas weeye diinta aan u gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahneeyey tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka ah wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inuu inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qawlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqadaada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasoo ha noqota asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhdii dib u raaco culimmadii la tirinaayey ama tawriyiintii la tirinaya magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahantay de fuliyayaalkii adinka weeyaan waacidiinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiiyo wasaaraddooda yaa mas-uuliyadda dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha ah waad ogtihiin macaashaddu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xidhanno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaahayn cuskanno iyo nafteenna maynu qof yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuuro geed lima inuu bixiyeyn kala arkee oo geed babaaya ku abuura oo geed cambaa ku abuura waa baxaya qof gurigiisa uusan baxaya ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xool haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaa nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahanya ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahanya waxaa loo baahanya inay ku tarsaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinima ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannabka ah dariiqa muslimilkaan inay ku leexiyaan xaquna waa la hakiyaa muddo waa la hor istaagaa laakiin kii la gaaro ugu dambaysta weeyaan soomaaliya heerka isticmaalka uu filayo iyo waxa taageeraya iyo dabadhiifkoodu ay filayaan uma suurtoobayso waa naqaan waxay haamin hayaan ma gaarayaan waa lu go'ayaan waxaan keli ahaan ka xumahay wax Soomaaliya oo dad Soomaaliya oo xuduud beenaad ka sheegay inay isku dilaan intii ay ka fuqsan lahayn xornimadooda inay ka ogolaadaan inay kii kala fujin lahaa ku dilaan taas baan aad uga xumaa laakiin way garan doonaan
waqti aan dheerayn bay garan doonaan waxay ku dhinteen markay baaraan bay garan doonaan waxay walaalkood ku dileen markay baaraan bay garan doonaan waxa ku shaqaysanayaan waxa u yihiin markay baaraan bay garan doonaan shaki iiga jiraa ma jiro inay maalin ka hor jeesanayaan waxaanu leenahay waa taxamil iyo waqti marka waa hubaa waa waqti weeyaan waa garashada maqan baa soo noqon beentii dhalanteedka way garan doonaan taasu waa intaa jaalayaal lagaba maarmaa waxaa weeyaan xornimo waynu helay waynu ku raysannay laakiin kuma aynaan gaarin dantaynu lahayn ma ahayn calan kaliya inaan taagano ma ahayn danteennu qura inaynu naaco xora inaan neefsanno waxay ahayd inaan baahi tirno dadkeenna inaannu jahaalada ka baabi'inno inaannu bini aadamka isku fillaada gaarno dalkeennu waa barwaaqo waa inaan dhulkeenna hoos ugu jeedaysannaa waa inaan baddeenna hoos ugu jeesannaa waa inaan xoolaheenna aragna waa inaannu hawl u dhaqaaqnaa waa inaynu garannaa qofku inuu dadweynaha u shaqeeyo dadweynuhu qofka usu shaqeeyo waa inaan garannaa waa inaannu tacab u gudubnaa baddeenni waa talo waa dhirsanta barwaaqa ka buuxda xoolaheenni waa kuwa yacni daadsan oo maynu iyaga tabcanno dhaqaalaysanno xanaanaysanno jaalayaal waxaan idinku hambalyaynayaa munaasabadaha kan qaaliga ah shacbiga Soomaaliyeed qaaliga ku ah innaga qaaliga inuga ah kuwa jooga qaaliga ku ah kuwii dhintay aynu ku qiimeeyno ku tixgelinayno kuwa dhalan doona ay bariisa guran doonaan